asxaabul kahfi waxay ahaayeen dhallinyaro Allah dartii diintooda ula baxsaday oo ka hajiray dhulka ay joogeen iyagoo galay god kaasoo ku sugnaayeen 309 sano. tiradooda cid dhab u haysa ma jirto. waxaa lagu sheegaa 3 uu 4 ku yahay eygooda mise 4 uu 5 ku yahay eygooda ilaa 7 iyo 8 ba waa la sheegaa. inta badan xilliga ay dhacday qisadan la iskuma raacin, waxaana la sheegaa inay tahay kadib 200 oo sano dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. xaggee ayuu ku yaalaa godka asxaabul kahfi? meesha uu dhaco godka asxaabul kahfi cid si rasmi ah u taqaana ma jirto, balse waxaa lagu qiyaasaa oo la sheegaa 2 meelood oo kala ah. deegaan ku yaala dalka Urdun, dhulka Shaam, deegaan 7 kiiloomitir u jira caasimadda Urdun, laguna magacaabo Kahfur Raqiim. waxaa ku yaala meel la booqdo oo lagu sheegay inay tahay godkii asxaabul kahfi. meesha kale ee loo malaynayo waa magaalo aad u weyneed waqtigaas dhulkii uu Roomaanku xukumayay, maantana ka mid ah dhulka Turkiga. asxaabul kahfi markii arkeen baadilka iyo shirkiga ay ku sugan yihiin qomkooda, waxay go'aansadeen inay Allah dartiis uga baxaan kana fogaadaan shirkiga. asxaabul kahfi waxay galeen god. markii ay galeen godka waxaa ka dhacday mucjiso, taasoo ah inay hurdeen 309 sano. muddadaas aadka u dheer jirkoodu isma beddelin, waxayna hurdayeen godka dhexdiisa. sidoo kale eygii ay wateen waxa uu jiiftay afka hore ee godka. fallaaraha qorraxduna ma soo gaari jirin. intii ay hurdayeen way isgagedinayeen oo hadba dhinac ayay u seexanayeen si aan jirkooda wax u gaarin. maxaa dhacay markay seexdeen kadib asxaabul kahfi? 309 sano kadib ayaa Allah dib u soo kiciyey oo hurdadii ayay ka soo tooseen. asxaabul kahfi iyaguna ma aysan ogeyn inta ay hurdayeen. hurdo dheer ayaana ka muuqatay. waxa ay isweydiiyeen muddada ama waqtiga ay hurdayeen. jawaabahoodii waxay noqdeen maalin ama maalin barkeed, iyagoo u malaynayay inay hurdayeen ugu badnaan hal maalin. laakiin arrinku sidaas waa uu ka duwnaa. waxay hurdayeen in ka badan 300 oo sano. waxa ay soo saareen lacagtii ay haysteen, oo mid ka mid a iyaga ayay ka dalbadeen inuu magaalada waxay cunaan uga soo gado si dhuumasho ahna ugu soo laabto isagoo aan la fahmin. mid iyaga ka mid ah ayaa tuuladii soo aaday. hase ahaatee waxa uu la kulmay wax cajiib ah oo magaaladu maba aha magaaladii uu yaqaanay, guryuhuna ma aha guryihii uu yaqiinay. sidoo kale waxaa isbeddelay cuntadii iyo lacagtii intaba. waa uu yaabay, waxuuna isweydiiyey sida ay ku dhacday in magaaladu isku beddesho maalin ama maalin barkeed. sidoo kale dadkii degganaa tuulada waxay la yaabeen dharka uu xiran yahay ninkan iyo lacagta uu wato oo ah mid aan hadda ka shaqaynin magaalada ama aan laga isticmaalin. asxaabul kahfi markii magaalada ugu dambaysay waxaa xukumayay nin boqor ah oo daalim ah. boqorkii daalimka ah iyo dadkii kaleba waa ay dhammaadeen maadaama muddo dheer ay ka soo wareegatay. magaalada hadda waxaa xukuma boqor wanaagsan, dadkiina waxay noqdeen mu'miniin. dadkii waxay la cajabeen dhallinyarada sababtoo ah waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee mu'miniin noqda tuulada. dadkii magaaladu waxay yaqiinsadeen in dhallinyaradan ay ahaayeen kuwa muslimiin ah, allana uu hurdo dheer ka soo toosiyey. waxay hubsadeen awoodda Allah ee soo noolaynta dadka, iyagoo ka tusaale qaadanaya arrinta mucjisada ah ee dhallinyarada asxaabul kahfi.